الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. walaalayaal khudbaddan waxaynu kaga warramaynaa arrin ay tahay inaynu mar walba qalbiga ku hayno ah geerida iyo waxyaabaha la xidhiidha arrimaha adduunyadan badan bay ka soo hadalay. marka xoogaa arrimaha adduunyada laga hadlo waa laga maarmaan safarka lama huraanka aan in laga hadlo. mawduuceenu waxa weeye xusnul khaatima wa calaamaatuha wa asbaabuha. khaatumada qofka oo ilaahay u wanaajinayo calaamadaha ay leedahay iyo sababaha lagu helo. waayo dadku had iyo jeer markay shaqooyin soo gabagabaynayaan ama imtixaan loo diyaargaroobayo nihaayadda aad baa loogu dadaalaa arrimaha adduunyada. marka tanaa ka sii mudan waxyaabaha calaamooyinkaasi ma aha in lagu haleeyo ama lagu fudaysado camalkii waynu samaynaynaa, dadaalkeennii waynu wadaynaa, innagoo dadaalkii adduunyadan aynu samaynayna iyo camalkii khayrkii wadna, haddana qofka ilaahay calaamadaha uu waafajiyo rajo wanaagsan baynu u qabnaa inuu ilaahay masiirka iyo mustaqbalka wanaajinayo. calaamadaha laba ka mida waynu soo xusnaa waxa weeye inuu tawxiidka ilaahay waafajiyo, siduu xadiidkaa saxiixa nabigu ku xusay calayhi salaatu wasalaam. qofka hadalkiisa markuu sii dhimanayo ugu dambeeya tawxiidku laa ilaaha ila allah jannadu galayaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam. waana tii uu kula dadaalayay adeerkii abu aalib markuu sii dhimanayay kelmaddaa dhebuq lahaa waa kii diiday. qofkuna marka uu sii dhimanayo waxyaabaha loo qabanaya ka mid in agtiisa laga yidhahdo laa ilaaha ila allah, tawxiidka u laqima buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu sii dhimanayo. waxaa nabigu wuxuu soo kale calayhi salaatu wasalaam calaamadaha inay ka mid tahay aynu rajo wanaagsan u qabayno qofkan inuu ilaahay jannaynayo in cimrigiisa inta dambe camal wanaagsan uu ku dadaalo oo jawigiisii hore uu bedelo. idaa araada allahu bicabdihi khayran istacmalah. nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa waxa ku yidhi ilahay addoonka markuu aakhiro khayr la doono ayaamaha u dambeeyo camal geliyaa, macnaa camal buu waafajiyaa, wuu hawlgeliyaa. yuwaafiquhu licamali saalixin uma yaqbiduhu calayh. yuwaafiquhu licamali saalixin qabla mowti. camal wanaagsan buu ilahay waafajinaya ayaamuhu sii dhimanaya ka hor. waynu aragnaa dad badan oo xaaladoodu isbedesho, soomka, salaada, xajka, sadaqada, cibaadada ku dadaala markii horena laga yaaba inuu caasi ahaa. marka waa calaamad wanaagsan buu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. waxaa ka mid a qofka oo xajka ku dhinta ama isagoo camalkii xajka xidhan, ixraamkii aan idhaahdo iyo cumradii iyo xajkii isaga oo adduunyada ka taga. rasuulku sala allahu alayhi wasalam waqtigiisi nin asxaabiya dhintay isaga oo ixraamkii caddaa xidhan. markaa nabigu waxa uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in dharkiisaasun lagu duuduubo dhakadana loo faydo sidii qofka xaajigii madaxa aan u qarin jirin. waxa uhi fainahu yubcathu yowma alqiyaamati mulabiyan. maalinta qiyaamaha waxa la soo saari doonaa isagoo talbiyada akhriyaya oo labayk allahuma adii uu ku dhintuunbu marka dambena ayuu isagoo akhriyaya ilahay la hor iman doonaa subxana wa tacala. marka waa calaamo wanaagsan. taa macnaheedu maaha qofku inuu halkaa ka raadsada inuu ku dhintee waa haddii alla waafajiyo qadartu ay u timaado. waxaa ka mid a inuu qofku jihaadka ku dhinto oo dee aayaadka aynu akhriyayni sida ay tilmaamayaan. qofku haddii isagoo ilaahay daraaddii u dagaalamaya dagaalkii gaalada ku shahiido isagana calaamad wanaagsan oo sheegaysa weeye khaatimadiisuna wanaagsanta. waxaa kaloo nabigu inoogu bushaareeyay calayhi salaatu wasalaam haddii fursad aynaan u helin jihaadka qofka niyo wanaagsan niyooda. man sa'ala allaha shahaadatan ballaqahu allahu manaazila shuhadaai wa imnaata calaa firaashi. idhaa wallahi haddii aan jihaadkaa heli lahaa waan ku shahiidi lahaa, niyadaasi ay ku jirto furaashkiisaba xataa hadduu ku dhinto ilaahay wuu u aqbalaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu gaarsiiyaa qofkii shahiiday halkiisi. saxiixu muslim buu xadiid ku sugan yahay. calaamooyinka waxaa ka mid a qofku marka uu sii dhimanayo inuu dhidid badani ka daadanayo. taasina waa calaamad uu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam mowtu lmu'mini bicaraqi ljabiin. waxa uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minka ay markuu dhimanayo calaamadiisu waxa weeye waa inuu dhidid ku yeeshaa dhafoorka siduu nabigu u ahaa calayhi salaatu wasalaam. sakaraadkii lagaga safaynayay waa inihii ugu dambeeyey dembiga qofka. calaamooyinka waxaa ka mid a inuu qofku dhinto habeenka jumce ama maalinta jimce. arrintaa isagoo nabigu ka hadlaya wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam maa min muslimin yamuutu yowma aljumucati aw leylata aljumuca ilaa waqaahu allahu fitnata alqabr. hadduu habeenkaa dhinto jumcaha ama maalinka jumce ilahay wuxuu ka badbaadiyaa balaayada iyo fitnada cadaabulqabriga iyo fashilaada ka timaada. marka khaatimo wanaagsan baa loo rajaynayaa. xadiidka culimada qaarkood daciif bay ka dhigeen, laakiin aimo badan oo albani raximah llahu ka mid yahay waa saxiix buu leeyahay ama waa xasan bimajmuuci duruqihi marka wadooyinkiisa la isku geeyo. calaamooyinka waxaa ka mid a inuu qofku ku dhinto cudurka la ydhaha daacuunka, allah inaga badbaadiyo. wuxuu ahaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam daacuunku cadaab lagu soo daayay ummadihii hore sida reer banu israa'iil oo kale. ummaddanna ilahay waxa uu uga dhigay naxariis buu yahay. saa daraaddeed cidda uu daacuunku halka ay joogaan ugu soo galo ee aan ka cararin ee ilaahay aamina ee ku sabra hadduu qofkaasi ku dhinto kaana lahu ajru shahiid. qofka shahiidka abaalmarintiisoo kale u yeelanaya xadiidkii bukhaari. waxaa ka mid ah calaamooyinka ruuxa dumarka oo ku dhimata umusha. aynu inagu waxayna way umul aroortay. marka ruuxa dumarka ah xaaladda ay dhashay haddii ay markay foolatay dhasho ay dhimato iyadana waxa uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay calaamad wanaagsan tahay. walmar'atu yaqtuluha waladuha jamcaa shahaada.
yajuruha waladuha bisararihi ila aljanna mar haddii ilmaheedii iyadoo dhashay ay ku dhimatay waxa uu mandheerta ula jiidanaya ilaa jannada buuli waa u shafaaco qaada ilahay shafaaca ayuu uga dhigayaa waxaa kaloo iyadana taa la mid ah inay isku dhimato oo iyadoo weli aan dhalin oo foolanaysa hooyadii ay sidaa ku godgasho aan ilmihii dhalinba wuxuu ku daray markaa walmar'atu tamuutu bijumcin shahiida ruuxii dumarka ahayd oo iyadoo uurkeedii aan weli umulin ku dhimata iyana waa shahiida buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah almowtu bidaa'i lbatni cudurrada caloosha noocyada kala duwan marka daacuunka laga reebo cudurradii caloosha oo dhan hadduu qofku u dhinto waxaynu rajaynaynaa inuu noqdo shahiid man yaqtuluhu batnuhu falan yucadaba fii qabri waa sugan yahay xadiidkaasi waa xasan sida uu tirmidi iyo nasaa'i aimo kaleba ay tilmaameen qofka hadduu caloosha u dhinto cadaab alqabri ma laha buu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam cudurrada caloosha dee qofka u dhintaanadi waa kala duwayno way badan yihin min calaamaati xusni alkhaatima waxaa ka mid a inuu qofkii ku dhinto bilxaraq aw ilgaraq aw ilhadm inuu dableefo ama biyihii uu ku hafto ama gidaar iyo buura ay ku dumaan iyo gebi oo sidaa kadiskaa qofkii u dhinto haddaanu isagu isku dilin oo qofka ama biyihii isku dilay ama dabkii iskubay ama meel isku dumiye kuma jiro waa qaatilu nafsi baa layaa kaasi waa qof isdilay ee waa qofka xaaladani ay ku dhacday isagoo aan sabab ku lahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa yihi dadka shahiidaa waa shan labadii hore aynu soo sheegnay kii daacuunka iyo kii caloosha iyo saddexdan intaasu israaciyay rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyo qofkii mujaahidka ahaa intaba uu ku wada xusay xadiidka ah waxaa ka mid ah an yamuuta almuslimu bidaa'i sil qofka muslimkaa inuu dhinto cudurkan la yidhaha t b da ee qofka sambabadu ay madoobanayaan kadibna uu neefsan kari waayo sidaana uu ku dhimanayo asilu shahaada buu leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidkaasoo xasana waa wax lagu helo shahaadada iyo shahiidnimada hadduu qofku cudurkaa t b da u dhinto ama sambabada qiyaas musaawiya ama la mid ah waxaa looga qiyaasan karaa cudurkan iminka karoonaha la yidhaahdo khatarta ah isaguna qofka sambabada inta uu ku dhufto uu u dhimanayo isagana waxaynu rajaynaynaa qofkii muslimuun baynu ka hadlaynaa gaal lagama hadlaye inuu ilaahay shahaado ku siiyo maadaama dhinacaas ay iskaga mid yihiin t b d iyo karoonihii sambabada ay ku dhacayaan iyo xagga neeftoo qabanaysa qofka waxaa ka mid ah waxyaabaha qofka calaamadda wanaagsan khaatumada u ah inuu u dhinto qofku an yamuuta almuslimu bidaa'i ljamb cudurkan oo fureenka la yidhaahdo oo inta qofka la tumaatiyo dhinaca dhiigu sii daynayo iyadana waa xusay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii abi daawud saaxibu daati ljambi shahiid qofka oo fureenka u dhintaa waa shahiid buu nebigu yihi riwaayo kale almeyitu min daati ljambi shahiid waxaa ka mid ah qofka oo muraabidan fii sabiili illaah oo fronta hore ama meelaha cadowga lagu dagaalamayo ayuu difaaca ku jiraayo dadka magaalooyinka ku raaxaysanaya maahe diinta muslimiinta diinta islaamka iyo dalka muslimiintu difaac ugu jiraayo nafdiisu hurayo halkaasuu ayuu ku jiraa dhufayska kaana nebigu ku daray calayhi salaatu wasalaam wa umina alfataan xadiidkii muslim ilahay waxa u qoraa qofka camalkiisii hadduu dhinto xataa jannadana waa ku soo dhoweeyaa qabriga fitnadii lagu fitnaynayeyna ilahay waa ka badbaadiyaa waxaa ka mid oo 13aad almowtu fi sabiili اdifaaci can اddiini wاlnafsi wاlmaali wاlahli qofku isagoo difaacaya naftiisa maalkiisa ehelkiisa iyo diintiisa inuu markaas shahiido sida uu xusaya xadiidkii saxiixa uu nabigu man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid waman qutila duuna diinihi fahuwa shahiid waman qutila duuna damihi fahuwa shahiid intaaba hadduu u dagaalamayo isagoon cid doonanin cidna daandaansanaynin marka dambe daba socota isagoo ilaahay u saciido daralle dalkiisa isaga jooga dadkaasi soo doontaa haddii uu intaa difaacayo isaguna shahiid buu noqonaya sida uu xadiid dhowra nebigu ku caddeeyay calayhi salaatu wasalaam waxaa sii iftiiminaya xadiid kaloo saxiixa muslim ku sugan min xadiidi abi hurayra ayaa nabiga nin baa su-aalay asxaabiya wuxuu ku yidhi waxaad iga warantaa rasuul allah in jaa rajulun yuriidu akhda maali hadduu qof yimaado doonayo inuu xoolahayga iga qaado mood iyo nool mid kasta ahaadaan maxaan yeelaya nebigu wuxu uhi falaa tuctihi maalak dee xoolahaaga ha siin qaala ara'ayta in qaatalanii qaala qaatilhu hadduu ila dagaalamo ka warran dee la dagaalan buu qaala ara'ayta in qatalanii hadduu idilo ka warran qaala fa anta shahiid dee shahiid baad noqonaysa qaala ara'ayta in qataltuhu qaala huwa fi nnaar ka warran haddaan anigu dilana dee naar buu galayaa buu wuu sii fasiray haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kaleo waxau ihi markii uu su-aasha ninkaasi weydiiyey hadduu yimaado qof doonayo xoolahayga inuu iga qaado ka warran wuxuu ihi fadakirhu billaah iska abhiyo ilaahay xusuusiyo bal iska jooji inaad isku day inaad iska waaniso ninkii waa sii wada waxau ihi haddii aanu kuba waantoobin oo abhintaa iyo waanada aanu ku joogsanin ka warran qaala wuxuu ihi fastacin calayhi man xawlaka min almuslimiin bal ummadda kale islaamka iyo ciddii uu qabsoomayo bal hadda erge ka raadiyo ha kaa joojiyaan hadduu kuwaana u qabsoomi waayo ka warran qaala fastacin calayhi suldaan maamulka u tag buubi iyo ciddii markaa fulin awood fulineed leh ee kaa qaban karta tiina uu sii weydiiye wuxu uhi fa ina asultaanu canii wacajila calay haddii maamulkiina iga fog yahay isna uu igu soo kadiyey qaala wuxu uhi qaatil duuna maalika xataa takuuna min shuhadaai alaakhirati aw tamnaca maalak ama shahiid baad noqon ama waad isdifaaci xoolahaaga difaac buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam waa qof madluuma oo aan daalim ahayn inta laga hadlaya sidaa uu nebigu iftiiminayo
ما هذا كان أنتوا دتك جيلو ده السوق هذا أما يجي السوق لا أنتوا قولي لك الله يرادو دون ماله تاسي صح معها طول ما هتقشال لقى ده بس عضتها ووحي هتجيستين في مال ولا قدامتها جاي هو كعبده كنا بتجلي واي نيكي نادي كجا صباح سيدي عليه الصلاة والسلام مدينة تلقى هذا يا وحوي قف للظلمية أو حق يشتغل نبقى جيستنينه الله ده بس عنا يا آنو تشرين مر لي بنا سلا ونبي حسين عليه الصلاة والسلام إن قفكي كما رواه مو يعني لا جور وريقو أنت صمر حلال الله صمر أو في عنها arrimaha soo dhami waa calaamado sheegaya qofku xaaladaha markuu dhinto in ay fiican tahay khaatumadiisu ilaahay baan ka rajaynaa khaatumo wanaagsan waxa jira asbaab li husni al khatima si khaatumada ilaahay noogu wanaajiyo waxyaabo aynu ku dadaalayno sabab ah waxa kamid ah istiqaamatu ala diin marka horeba inaad duldulka iyo leexleexadka iska ilaaliso diinta ku toosnaato innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun aayadkaas ka warramaya bishaaradu inay markiiba u soo degdegaysa marka nafta laga qaadayo waxa kamid ah xusnu dhanni billah inaynaan ilaahay malaxun ka malaysanin ilaahay inaynu malo wanaagsan mar walba ka malaysano iyo inuu noo dambi dhaafayo inuu ina jannaynayo inuu naxariis badan yahay adigoo camalkii wada dadaalaya ilaahay baa wuxuu ana inda dhanni abdi bi anigu adoonkaygu kolba wixii iga malaystaadaan ku dhawa waxa kamid ah alla ka cabsiga waxa la wixii xaraan inuu qofku iska daayo noocyadeeda kala duwan waajibkan aanu fudaysanin oo aanu ka tagin waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran ilaahay baa arrimihiisa oo dhan u fudaydinaya waxa kamid ah as-sidq runta shayga la yiraahdo oo runtu samafalkay kugu hagtaa سما فالكاسنا جنده كوها قابل النبي عليه الصلاة والسلام وحكمنا التوبة إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا إن إلهي الله توبت كنا توبت هذه شرات بدي صوت كده داش ويا النبي عليه الصلاة والسلام قف بقول قفت لي وقان كقاتين إلهي توبت كانوا وضدك حماكة تقدد وناكسن يدل وناكسن كوسي سعلا إن جيرد كتمي سيدنا إلهي وكقاق بلي توبت دي ووحي وجيست لك ضعف وحكمنا ذكر الموت وقصر الأمل إن أنا قفك هذه الأشياء إسدافين حسوس الجريدة يا آخرة الجريدة وحسوسية هاي آخرة وحسوسية هاي يدي لدي سر في السنة إلى ميل دمنا وصاير يقول ربما وحلا جاي علينا العاو بريتو سنة كان أطيمته وحكم إذا إن أوقفك وقع على روح من أسباب سوء العاقبة وحكى صلى الله قف إني عرب حمل ليهين والدليل كي يدين تاينوش جايين إنه قفك وقع أرماها سنة كلها وحي كم يدهين أسبابتا خاتم هذا قفك أي كوها جاي كرت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا وارحم والدينا ولجميع المسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة